بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم ونكسن داودين ملك صوت نقد داونيسان وهذا هنيوسو تمشرنا ورك جدر بديه سيد بدي السبع وتك داودها ساعدها نقل تلفزيون غمد حبنا نبرش تي في استوديو سوق بعد المجال ده هالبيساع ورقوا حديثو تمدون تاني وعسيس عبد الله هي قضب هذا ورقوا قدر خلنا وحكم ده مدحوينها الصومالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلانيو ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka dalka Faransiiska u fadhiya wadankaasi Kenya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Xurro ayaa ka warbixiyay socdaal uu ku soo maray deegaanada ka mid ah gobolka Awdal waxa maanta la soo gabagabeeyay carwo ganacsiyeed maalmihii u dambeeyay ka socotay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal qaar ka mid ah ganacsatada dalka ayaa deeq lacageed ku wareejiyay qaar ka mid ah guddiga madaxweynuhu dhawaan xil saaray abaaraha ba'an ee dalka ka taagan dalada haweenka alla aamin ayaa kulan wacyigelin u qabtay dhammaan ururada hoos yimaada daladaasi alla aamin intaas waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka rool leh haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka dalka Faransiiska u fadhiya wadankaasi Kenya sidoo inoogu soo warramay wariyahayaga Nagiib Cabdilaahi Colaad madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta xarunta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu horkacayo safiirka dalka Faransiiska u fadhiya dalkani Kenya wafdigani uu horkacayay safiirka dalka Faransiiska u fadhiya wadanka Kenya ayaa waxa kulankaasi madaxweynaha Soomaaliland ku wehelinayay madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici qaar ka mid ah golihiisa wasiirada kulankani oo warbaahintu ay dibad joog ka ahayd tan iyo intii uu kulankaasi socday ayaa markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaana uu ka warbixiyay ujeedada kulankani iyo qodobada ay ka wada hadleen farbadan adduunka maxaan raadaya ka shaqeeya waxa laga wada hadlay iskaashiga labada dhinac dalka Faransiiska iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii iskaashiga hadduu ganacsi yahay iyo hadduu yahay nabadgelyada iyo hadduu yahay arrimaha electionska maanta inuu soo aadan iyo hadduu yahay sida aan uga wada shaqeyn lahayn Jamhuuriyadda Soomaaliland inay hore u sii marto ayaa laga wada hadlay safgarasho aad iyo aad u wanaagsan ayaa labadaba laga gaadhay halka waxa fadhiyay wasiirkii cusba ee ganacsiga Deer waxa fadhiyay wasiirkii qorsheynta qaranka madaxweyne Cali Shombe waxa fadhiyay saadka waraysan sawirada Deer madaxweyne ku-xigeenkii iyo Maxamuud iyo wasiirkii madaxtooyada waxa kale oo la socday wafdigan uu hogaaminayay safiirka maxaan ku raahdaa Soomaaliland u fadhiya dalka Faransiiska marka waxa weeye afkarad wanaagsan sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay safiirka dalka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya ambassador Imit Marshall oo isaguna ka waramay ujeedada kulankani uu daarna waxaana uu sheegay tan iyo intii uu kulankaasi socday in la qaatay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada wadan ee ka dhaxeeya Soomaaliland iyo dalka Faransiiska waxaana xukuumadda Soomaaliland uga mahad celiyay sida wanaagsan ugu soo dhaweeyaan dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland that I come to Somaliland. We had a very fruitful mission here, so we made, I think, progress. We also had the opportunity to travel to Berbera and also to travel on the road to Berbera to the Coca-Cola factory, the SBI factory, and I visited the Lasgale site. taliska guud ee ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa waxay maanta sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen 16 ka mid ah debli hubeysan oo maalintii shalay weerar ku qaaday goob diiwaangelinad oo ku taala deegaanka Sabawanaag ee degmada Lughaya iyagoo sidoo kalena halkaasi talisku ugu soo bandhigay warbaahinta hubkii iyo gaadiidka ay wateen deblidaas ee lagu soo qabqabtay ugu horreeyna waxa shirkaasi jareed ka hadlay afayeenka guud ee ciidamada booliiska ee Soomaaliland gaashaanle sare Faysal Xiisa oo isagu faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u soo qabteen deblidaasi shalay waxa ka dhacay meesha laga hadiyta fandimir aad iyo aad xun oo la doonay in lagu waxyeeleeyo qaranka iyo bulshada Soomaaliland isii wanaag ciidanka booliisku
markaasi soo gaadhay waxay galeen hawlgal aad u ballaaran sababtani uu sheegay kadibna waxay gacanta ku soo dhigeen 15 nin oo ahaa nimankii faldibeedka galay iyo gaadiidkii ay wateen iyo baabuurtiiba waxa ay haddana ah in falkaasi ay hogaaminayeen niman salaadiin sheeganaya oo la kala yidhaahdo ibraahim sulub nuur iyo suldaan mawliid cali ibraahim oo lagu naanayso sabaystay labadaas nin ayaa hogaaminayay nimankaa faldibeedkaas galay markii goobta dambigu ka dhacay ay tageen nimankaasi waxay rasaas si walkaca ula dhaceen nimankii shaqaalaha ka ahaa goobtaasi hadiyay waxayna waxyeelo soo gaarsiiyey sida ay ku arkaysaan qalabkii lagu shaqeynayay ee goobtaa dambigu ka dhacay yaalay oo kala ahaa britikii baashii indhaha laabtobkii wedinka arkay rasaas baa ku taalla khasaare aad iyo aad baa soo gaadhay gaadiidkii maxaa yeelay goobta kaga shaqeynayay komishinku waxaasoo dhan rasaas bay la dhaceen nimankaa hubaysan ee la soo qabtay halkan waxaa yaalaa qoriyii nimankaa lagu soo qabtay nimankii faldibeedkaas galay qoriyii ay gacantooda ku haysteen hadday salaadiin yihiin iyo hadday kuwa kale yihiinba faldibeedkaa dhacay ee ay nabadgelyada ku khalkhalgelinayeen dembiga wixii ay ku galeen waxay ahayd qoryaha welikaa arkeen kaasi waa jitidii kuna waa aakagii waa bistooladihii waxaa laga soo saaray eeg iyagaa lagu qabtay faragarastalito hadhow dadku inay yidhahdaan maxaa salaadiinta lagu xidhay maxaa saa loo dhahay maaha waxa weeye suldaanku hadduu dembi galo sharciga waa loo sameeyey isagoo dhigaya article 3 wuxuu ka hadlaa wax la eegurtaa sharciga waa loo sameeyey madax ilaamijo qofkii faldibeed gala weliba faragarastalito ku gala isagoo dhigaya article 37 halkaa ciqaabta waa la qabanaya maxkamadda loo geeyay dhinaca kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliiska ee Soomaaliland Sarreeye Guuta Cabdilaahi Fadal Iimaan oo uga mahad celiyay ciidamadii howlgalkaasi fuliyay isagoona bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidamada booliiska ee Soomaaliland Mr. Cabdilaahi Fadal Iimaan oo isaguna arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaan kala waan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeedinayaa ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan saraakiishii iyo saraakiil xigeenkii iyo arfleydii iyo dableydii ka howlgalay ee naftood hurayaasha ahaa dhacdadii shalay bisha 17 lagu weeraray goob diiwaangelineed oo ku taala Hadayta ciidankii ka howlgalay anigoo Ilaahay u mahad celinaya markii falkaas aanu maqlay ciidanka booliisku wuxuu galay eegan buuxa full alert ayuu galay waxaanu galay howlgal ballaaran oo meel kasta oo loo tuumayo inay burcadii falka fursad gasho lagu soo qabanayay waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland halkan ama lagu soo jeeday shacabka reer Soomaaliland sida wanaagsan ay hadiya jeer ciidanka booliiska ula howlgalaan ee ay ula shaqeeyaan ama ciidanka booliiska ku boorinaya inay shacabkooda u dhagmuglaadaan ilaashadaan aad iyo aad ugu mahad celinay Cabdiraxmaan Fantastic Bulsho TV Hargeysa kalfadhigii maanta ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa laga soo saaray go'aamo 3 qodob war-saxaafada ka soo baxay kalfadhigii maanta ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa laga soo saaray go'aano ay ka mid yihiin 3 qodob kalfadhigana uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray Bulsho TV ayaa waxa uu dhignaa sidan kalfadhigii 119aad ee golaha wasiirada Soomaaliland uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta oo khamiisa sidii caadada ahaydba ka qabsoomay hoolka shirarka ee madaxtooyada Soomaaliland kulankaas oo lagu ansixinayay in laamaha dawladda laga jaro qaran lagu kaabo xaaladda abaaraha ee dalka ka jirta madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ana gudoomiyaha guddiga abaaraha oo madaxweynaha shirka ku wehelinayay ayaa warbixin ka jeediyay shirkaasi isagoo oo xusay in ay abaaraha sii baahayaan oo ay ku filayaan dhul aanay hore u gaadhin oo hor leh haddii aanu degdeg raxmaadku Ilaahay inoogu iman ay arrintu sii adkaanayso sidaas awgeedna loo baahan yahay gurmad degdeg ah in loo galo wax ka qabashada xaaladda abaaraha waxna loo gaarsiin lahaa dadka iyo dunyada tabaalaysan madaxweyne ku-xigeenka waxa kale oo uu sheegay in durba ay soo xaroodeen qaadaan ka yimid shirkadaha ganacsiga ee wadaniga ah qaarkood halka kuwa kale oo shirkadaha ganacsiga ahna uu qaadaan ku dajita ku soo jiro oo ay dhawaan filayaan falaqayn dheer iyo xog waran ku saabsan xaaladda abaaraha kadib waxa la isla qaatay go'aamadan
dhaqaalan ururinta oo ay golaha wasiiradu cod gacantaaga ku ansixiyeen waxaana ka mid ahaa go'aamadaas kow in xubnaha saddexda gole qaran ee dalka iyo madaxda hay'adaha dawladda ee madaxa banaanba ay bixiyaan boqolkiiba 20 mushaharkooda oo loo kala qaybiyo labada bilood ee February iyo March ee sanadka 2016 laba in shaqaaleynaha dawladda laga jiro boqolkiiba 10 mushaharkooda sidoo kalena loo qaybiyo labada bilood ee February iyo March ee sanadkan 2016 saddex ciidamada kala duwan ee qaranka in laga jiro boqolkiiba 5 mushaharkooda loona qaybiyo labada bilood ee February iyo March ee sanadka 2016 saxaafadeedkan oo ku saxiixnaa afayeenka madaxtooyada Somaliland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye Shamaax qaar kamid ah ganacsatada dalka ayaa deeq lacageed ku wareejiyay qaar kamid ah guddiga madaxweynuhu dhawaan u xil saaray abaaraha ba'an ee dalka ka taagan wakan wariyahayaga Khadar Macalin Deeq oo inoo soo diyaariyay faafahinta warkaas qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Somaliland ayaa meenta deeq lacag ku wareejiyay guddida abaaraha ee dhawaan madaxweynaha Somaliland oo magacaabay gurmadka loogu jiro dadka ay abaaruhu saameeyeen kulanay maanta isugu yimaadeen guddida abaaraha heer qaran iyo waliba ganacsatada waaweyn ee dalka oo ka qabsoomay xarunta rugta ganacsiga ee Somaliland ayaa waxay halkaas ku wareejiyeen qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn iyo ganacsataduba deeq lacag ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan gurmadka loogu jiro abaaraha ganacsatadan oo ka mid ahaayeen shirkadda Telesom shirkadda Dahabshiil Group shirkadda Al-Harb Trading Company shirkadda Sam Cable xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho qaar ka mid ah qurba joogta dalka iyo shirkado kale waxna ugu horeynba halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka kana mid ah guddida abaaraha iyo waliba ganacsatadii deeqaha lacagta wareejinaysay waxana hadaladoodii ka mid ahaa hawsha guddigan u xilsaarantahay oo ah in wax la istaro la iskaalmeeyo diinteenna ayna faraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxa uu naamray in la iscaawiyo ilaahay baa yidhi watacaawanu cala albirri waataqwa isu kaalmaysta isu gacan qabsada wixii alla ka cabsiya iyo wixii wanaaga iyo wixii wax istara dibad iyo gudaba dawlad iyo ganacsato iyo dadweyne intuba nin kasta oo walaalihiisa tabaaloobay ee abaaruhu waxyeeleeyeen ee dad iyo dunyaba gargaarka u baahan inaan maanta u kacno maadaamay sidaa tahay arrintuna ay tahay qaacido sharci ah in qofkeenna baahan inaynu wax taro oo waxa weeye waa taqaanin rugniga saddexaad ee islaamka waa dadka muslimiinta ama dadku inay wax istaraan haddii ay sidaa tahay waxaan jecelahay anigu weelka wax laynoogu soo ridayo iyo meelaha xisaabaadka ah inaan nambaradooda sheego xisaabaadka waxaan jecelahay saadkaa dadku ay aada u hayaan saadkaan ugu horraysiinayaa waayo ka yar baan doonayaa ee iskuulka dhigta iyo ka weyn inay labaduba ka qayb galaan saadka nambarkiisu waxa weeye 4 7 2 eber 2 2 2 dahabka nambarkiisu waxa weeye 5 iyo 4 labaad 5 2 2 2 2 oo ku iibsa ah dahabshiil accountkiisa haddii lagu soo shubayo waa 20,500 2 eber 5 eber eber Daarasalaam Bank waxaa lagu soo shubayaa 6 eber 1 8 6 eber 7 5 waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaynu aada uga farxin doono dadka dhibta badan ay ku dhacday abaartuna ay ku habsatay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ay guddida abaaruhu ay lacagihii ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan gurmadka abaaraha ay kaga guddoomeen ganacsatadii lacagahaasi ugu talagalay waxaana halkaasi ka akhriday guddidu magacyada shirkadaha iyo weliba shakhsiyaad ka soo gaarsiiyey deeqaha lacagta iyo si aan kala qaybsanaynba isniin ka guddoomaynaa halkan hay soo fadhiista cali soo dhawaado shirkadda Som Cable Maxamed Awsiid Geedi Som Cable oo iyaguna maalintii qaranka ugu balaaran ama ugu culus ku dhawaaqay $8,000 oo iyaguna jeegii noo keenay jeegii waxa ay noqonayaan xaliba waaya gacantan ku haynaa
dahabshiil ilaahay iyagana ha barkeeyo waxay hayaan alla ha barkeeyo dad iyo diin alla ha barkeeyo iyaguna qaaraankooda koowaad konta kun bukeen ahaa way ku shubeen accountka ku jira waxaa leeyahay cabdi faarax bay naga fadhiya iyo cabdiraxmaan cali cabdi iyo waxaase ku daraya oo runtii iyaguna ay taa dheeraysiiyeen waxa weeyaan waa maxaa la midka wafiintii $30,000 oo shaqaalaha dahabshiil iyaguna ay si gaar ahaadeen hargeysa shaqaalaha hargeysa dahabshiil $30,000 oo iyaguna ay shaqaalahan u tabaruceen oo shaqaalaha u tabaruceen waa 50,000 oo shirkada iyo 30,000 oo shaqaalaha aad u wanaagsan shaqaalaha fiikum Allah idinka aqbalo iyaga joogooda aynu haynaa shirkada Almis Electricity ama Alel Electricity Alel $20,000 bay iyaguna ku baaqeen oo ay ku yabaheen iyaguna way soo shubeen dadkooda ku jeegeen way keeneen iyagana waxaan leenahay Allah u barakeeyo waxa iyaguna xalay dad hortoodba buuran oo keenay alxab trading asaaska aan naga joogna jeegoodii oo haasna $20,000 ilaahay iyagana ha ka aqbalo samana ilaahay ha kaga abaaliyo waxa ay bixiyeen wax ka badan Allah soo wadaariyo iyaguna jeegooda waayna akoontana ku jira aad u mahadsan waxa kale oo runtii qaarkooda iyaguna soo gaaray niman dhalinyaro ah oo Bristol magaalada laga Ingiriiska ku taala ka soo diray lacag $100,000 way u soo dhibeen wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo iyagana lacagtaasi ay naga soo gaadhay oo aan gacanta ku hayno iyagana waxaan leenahay Allah idinka abaariyo Allah idinka aqbalo waxaad bixisay wax ka badan oo ka wanaagsan ka barka badan Allah idin soo idaariyo waxa isagana lacag laga soo gaadhay in kala yaado xildhibaan Aadan Xaaji Diiri Dir isla ka tirsan lacagta laga soo gaadhay waa 10 milyan oo shilinka Soomaaliland دير بدل قول العقبة من غلطة هذا الحاجي ديري أنا الله كأقبله ولا البحيم وأحب على كبر الكويس أنا أقول بدلو إذا ممكن أنت قرار كان سوق gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa ka warbixiyay socdaal uu ku soo maray deegaanada kamid ah gobolka Awdal gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa safarkii uu ku marayay guud ahaanba gobolada galbeedka Somaliland gaar ahaan xeebaha gobolka Awdal oo soo idlaaday maalintii shalay ayaa waxa uu maanta mar warbaahinta la hadlayay ka warbixiyay waxyaabihii uu ku soo arkay safarkiisa ayaa waxa uu yiri safarkan ku nimay halkan وكمل ها سفرادي أنا كنت جاي اللي قبل الله ضمو كمل ها قبل كيقول ريب أنا صام الرأي الديوانات قبل عبطي قبل كتقدر سوينا أقسم بهوشاس قبل كوجا صار دماتي قبل كل بعضنا وانو كقريب قال لي بلوجيسي وقبل كأوضل يسال الباء جدهان وحن كوكان عصنا هاي سيد ديوانات وصعد قبل عبشوي بدنا تكوي سوتشي ديين ay kamid yihiin in goobaha ku yar yihiin in kombiyuutarada ay ku yar yihiin in ay gaabinayaan xawliga ay ku socdaan kombiyuutaradu cabashooyinka qaar lamida goboladii horena waan ku soo aragnay hase yeeshee wixii fariina ay dad shacbigu nafaraan ama cabashooyina isla markii waxaan u gudbinaynay guddiga doorashooyinka qaranka si wax uga qabtaan waxaan ugu baaqaynaa guddiga doorashooyinka qaranku in howlaha dadku ka cabanayaan ay wax ka qabtaan fariintaana horaan ugu gudbinay safarka iyagu wuxuu ku salaysnaa uun kormeer kuurgal xoogaal u noqosho xaaladda guud ee dalka diiwaangelintu sida u socoto shacbigu wayna soo dhaweynayeen intaasi kadib ayaa waxa madashaasi warbaahinta kala duwan ay su'aalo ku weydiisay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro iyagoo su'aalahaasi u dhacayay gudoomiye waxa ku weydiinaya goobihii aad safarada ku soo maraysay safarkiina Soomaalida waxa laga soo sheegay isla shalay toole marka lacagta ka soo dhameyseen inay goobo kamid ah qalalaas ka dhacay ma laga yaabaa ka xisbi ahaan inaad ka dambeyseen qalalaasaha goobaha ka dhacay xisbiga weyn kula joogna inta yadii safarka ku nimina waanu dhannahay meesha qalalaas ka dhacayna cid naga tagtay ma jirin marka haddaan adigu ka dambeeynin horta anagu kama aan dambeeynin gudoomiye gudoomiyaha golaha wakiilada tahay waxaan u tartamaysaa musharaxa madaxweyne goorma laga yaabaa in iska casho xilka gudoomiyaha way soo dhowdahay Abdullaahi Daar waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Boorama dalada haweenka alla aamin ayaa kulan wacyigelin u qabsay dhammaan ururada hoos yimaada daladaasi alla aamin sidoo faafaynta warkaasi inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Yuusuf Iimaan
dalada haweenka Al-Aamin ayaa maanta munaasabad ay ku qabsatay xaafadda Sheekh Muuse Ducaale ee degmada 31 May ee magaalada Hargeysa. munaasabadda ujeedkeedu daaraneed kulan wacyigelin dhanka ururada oo loo qabtay 10 urur hoos yimaada daladaasi, waxaana ka soo qayb galay hogaanka sare daladaasi, maamulka degmada iyo marti sharaf kale oo tiro badan. ugu hore waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi Marwa Sabaax Aadan Axmed iyo ku-xigeenkayga Samson Abdi. waa kuwan iyagoo faahfaahin ka bixinaya qabashadii xafladan. kaliya waxana laga caawiyay waxa weeye talada ayaa laga siiyay oo gaafo oo ismaatinkayga mas'uuliyadda iyadoo ayaa talada la siiyay ismarka ayaa keentay intii aad loo mahadsan yihiin waxaan u garanay martiiniin oo inta ma garanay suuqaasi ka keenay aad loo mahadsan yihiin anigoo ku hadlaya magaca gudoomiye ku-xigeenka daladan Al-Aamin waxa ka hadlaya waxa weeyaan inaanu biisanahay leenahay guddi ka kooban biyaha qaar doona qaar nadaafada qaabilsan qaar dhakhtarka qaabilsan qaar aan caafimaadka qaabilsan guddi dhisan dad wax qabsan kara inaanu nahay ayaanu xaafadda 31 May waxaan aad u salaamayaa maamulaha iskuulka Cabdiraxmaan oo noo soo agaasiyay xafladan qaaliga ee qiimaha badan noona ogolaaday inaanu ku qabsano madashan. tobankan ururna waxay matalayaan 200 oo qoys nimanka dhinaca kala dhigno way hooye kasta qoys bay ka socotaa 200 oo qoysina marka amniga laga hadlayo wax badan bay ka qaadan karaan, marka horumarka laga hadlayo wax fara badan bay ka qaadan karaan. marka guddiga xaafadda iyo guddiga nabadgelyada iyo taliyaha booliiska waxaan ka codsanaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay dad kale oo ku hadlayay afka ka soo qayb galayaasha. intii xafladaasi socotay waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada 31 May isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri imaka degmada waxaanu joognay muddo 3 bilood iyo bala. anugu waxaan jecelahay inaan wax weyn degmahaan ka qabanno annaga laftigaygu oo wada banayn baanu ku jirnaa. 3 wiigba marba cagaf nala ogolaaday inaan wadooyinka ku banayno. waa ogeydeen oo wadadaana inaan xarna waa la tallaabinayo kor baa loo kaxaynaya. wadooyinka meesha xaafadda dhexdeedana inaan wax ka qabanaa waa wax wanaagsan, waayo qofku marka uu wax qabadkiisa meesha uu ka tagaabaa wax qabadkiisa la soo qaado. ama la yidhaahdo waxba muu qaban ama waxa la yidhaahdo waa ninkii wax qabanaya baa naga tegey, wax lagu xasuustaa bay noqotaa. haddaba markay gaafa sidan Al-Aamin daladan ay midowday waxa weeye wax weyn bay qabsan karaan. maxamed yuusuf iimaan, Bulsho TV, Hargeysa. deegaano ka mid ah gobolka Gabiley ayaa la gaarsiiyay deeq isugu jirta raashin iyo timir. sidoo faahfaahinta warkaasi inuu soo diyaariyay wariye Ayaanle Maxamed Ibraahin. deeq raashin ah oo kala duwan ayaa la gaarsiiyay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada ku teedsan gobolka Gabiley, taasi oo ay guud ahaanba dadkaasi ku nool yihiin xaalad adag oo saameysay dad iyo duunyaba iyadoo taalan lagu garbaxo. deeqdaasi oo ka koobnayd 450 qoys dadka abaaruhu saameeyeen soo gaarsiiyeen jaaliyadda reer Soomaaliya ee deegaan Sacuudiga, gaar ahaan magaalooyinka Jubeel iyo Dahraan. sidoo kale deeqdani waxaa dhinaca ka ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Marwa Samson Abdi Aadan iyo hay'adda khayriga Al-Huda. ay halkaasina goobjoog ka ahaayeen xildhibaan Ibraahin Axmed Haybo oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, maayarka caasimadda Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi, hoggaanka gobolka Gabiley ahna ayaa xilka badhasaafka Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case, xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Gabiley shinkaasi qaybinayay. waxaynu isugu nimi inaan si gaar ah marka hore ugu mahadnaqno uguna ducayno wixii duco la oranayay. waa la yidhi dadka muxsiniinta ah iyo hablaha muxsinaadka ah ee muuminaadka ah ee ka aqaalaanka aan maanta qaybinayna soo diray kana soo diray magaalada la yiraahdo Jubeel iyo Dahraan lacagta $10,000 oo ay ku soo hagaajiyeen wasiirka maaliyadda
wasiirka maaliyadduna annaga nagu soo hagaajiyey iyo iyada nafteeda wasiirka maaliyadda oo kaga qayb gashay 500 saliida kartoon oo saliida iyo khayryada alhuda la yidhaa oo iyaguna 700 timir ku deeqay wixii markii hablihii soo diyey iyo wasiirkii maaliyadda iyo ganacsada Omar shirkadiisa sidaa ayaan ugu sheegaynaa inay naga guduma iyo alhudaba cid kasta oo dadkan maanta gobolka ku nool ee abaaraysan ama hore wax soo tartay ama hadda wax soo tartay aynu maanta u joogno taa dumarka muxsiniinta ah ee reer Saudi Arabia Jubail iyo Tahran $10,000 ku soo deeqay jazakumullahu khayr baan leenahay dumarka ilaahay halkii aad ka soo saartay wax khayr la idin geliyo waxaan maanta halkan u joognaa inaanu dirno oo dadka gaarsiino raashin 450 qoys aanu ugu talagalay raashinkaasi oo ah raashinka ay soo gaarsiiyeen dumarka muslimiinta ee ku kala nool Tahran iyo Jubail lacagtaasi runtii waxaa soo gaarsiiyey xildhibaan Ibrahim oo ay soo guddoonsiisay marwada wasiirka maaliyadda Samsom Cabdi Aadan oo dumarkaasi ku soo hagaajiyeen waxa dhanay lacagtaasi $10,000 $10,000 waxa lagu bedelay raashin isugu jira bariis iyo daqiiq oo 450 kiisha 450 kiish waxaan ugu talagalnay inay kofargareeyaan 450 qoys oo ah dadka ay abaartu saameysay waxaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dumarkaasi muxsiniinta aan leenahay ilaahay ha idinka abaal mariyo ilaahay cimriga iyo caafimaadka iyo caruurta iyo cuudkaba ha idin barakeeyo halkaad ka soo saarteen wax ka khayr badan ha idinku bedelo waxaanu joognaa tuulada Goray oo aanu ku qaybinayno raashinkii 450 qoys aan ugu talagalnay 90 qoys raashinkood ayaanu ku dejinay Goray oo naga gudoomeen deegaanku waa ku maadsan yihiin halkan abaar adag baan ka tagan gobolka waliba siiba Goray ahaan hadda Carabta jooga ee soo direen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadkoogay iyagu dibadda jooga soo xasuustay maadiga arkaya maanta raashinku soo gaaray aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa assalaamu alaykum inaad idinkuna dadka deegaanka 90 qoys ee noloshooda ugu sii hooseyso aad u xushaan oo siisaan insha Allah marka nagala wareega 90 qoys raashinkooda daan oo aad maanta abaaraha jira awgeed aad noogu keenteen raashinkii xalayna biyo loo dheeraa waliba biyo la keenteen waad mahadsantiin maalin idinka gudoonay waxaanu joognaa deegaankii Iranka halka waxaanu ku wareejeynaa deegaanka Iranka raashinka ay noogu talagalnay baan ugu mahad celinay waayahay hablahaasi dadkoogii soo xasuustay aad u baahnaa ee aad u jilicsanaa waxaanu leenahay ilaahay bashbashiye barwaaqaha idinku nooleeyo sidaa iyo si ka fiicanna waanu idinka sii rajaynaynaa inaad naga soo caawisaan hablaha reer Somaliland ee gobolkan ka soo jeeda Sacuudiga jooga aad iyo aad ayaan u hambaleynaynaa waa idinka arkaya wixii aad soo dirteen wixii lagu soo bedelay in aanu joogno dadkii aad soo dirteen dadkii aad u damqateen dadkii ay jeebkiina ay idinka soo saarteen wataa jawaabteedii annaguna sidii ay idin noogu soo hagaajiseen waanu keennay halkii loogu talagalay ay baahi ka jirtay idinkana waxaad leenahay halkii aad ka soo saartaan ilaahay wax khayr qaba idin geliyo ayaan la xaji bulsha TV Gabiley wararka kalena soo gaadhayna waxa kamid ah kulan uu soo qabanqaabiyay isku duwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolkani Awdal ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha nootayada ee guud ahaanba gobolkani Awdal gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal gudoomiye ku-xigeenka degmada Boorame ayaa dhamaantood waxay soo dhaweeyeen kulankani isla markaasina kulankani uu ahaa mid isbarasho ah oo la isku barayay guud ahaanba garsoorada kala duwan ee cadaaladda iyo sidoo kale nootayooyinka sharciga waxaana ay dhamaantood sheegeen
kulankani in ay soo dhaweeyeen isla markaana ay doonayaan in wax laga qabto dhammaanba qaybaha kala duwan ee cadaaladda iyadoona laga hadlayay sidii guud ahaanba looga sufeyn lahaa gobolkani awdal waxyaabaha la xidhiidha cadaalad darrada ugu horeyn ayaa waxaa munaasabadani ka hadlay iskuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka awdal waxaana uu yidhi ujeeddada ugu weyn ee saaka aan isugu nimidnay waxa weeyaan iyadoo aan doonayno in guddoomiyaha maxkamadda racfaanka mastaradiisoo cusub iyo saraakiisha nootayooyinka oo ka tirsan bahda garsoorka inaan kulmiyo si ay isu bartaan meeyar ku-xigeenkuna xagga dawladda hoose maadaama xidhiidh shaqo uu ka dhaxeeyo iyagana nootayooyinka iyo dawladda hoose in isaguna dhanka dawladda hoose oo goobjoog ka ahaado inala joogo waan soo wada dhaweynayaa horta dhammaantiin dhanka kale iyaguna waxaa madashani ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Boorame iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah gudiga nootayada ee gobolkani Awdal waxaana yiraahdeen waxaad ogtihiin Somaliland inta badan waxa dilalku ay ka dhacaan ama dad shacab isku dilaan ama maalin walba lagu dilo booliska Somaliland waa dhul weey runtii waa arrin imika u muuqata faqaran bayna tahay taasoo ay ugu sii daran yihiin gobolka uga soo xigay galbeedka Soomaaliland oo ay beeruhu ku badan yihiin runtii waxa weeyaan haddii bahda garsoorka cadaalad u qaabilsan wasaaradda cadaaladana ka tirsan dawladda hoosena ay wada shaqeeyaan nootayooyinka iyo dawladda hoose ay si fiican wada shaqeeyaan waxaan aaminsanahay inay arrintaasi wax badan ka qabanayso xaggii nabadgelyada runtii waa maalintii u horreysay in kulano muusana aad baan ugu mahadnaqaya maadaama uu soo dhaweeyey oo isugu yeedhay bahdii nootayooyinka runtii nootayooyinka waxay ka mid yihiin hay-adaha sharciga hoostiga wasaaradda cadaaladda arrintaa gacanta ay ku hayaana runtii waa sharci waxaana looga baahan yahay nootayooyinku inay had iyo jeer si taxadar leh ay u dhugtaan oo ay maskaxda ku hayaan in waxyaabaha ay ugu shaqeynayaan ummadda ay tahay wax sharciga kuna hadlaya magaca nootayooyinka saraakiisha nootayooyinka ee wasaaradda cadaaladda horta aad buu mahadsan yahay isku duwaha wasaaradda cadaaladda muuse gudoomiyaha maxkamadda iyo gudoomiye ku-xigeenka duqa magaalada arrintaasi aad sheegtay runtii aad baad ugu mahadsantihiin annaguna waxaanu ballan qaadaynaa in aanu fulino oo aanu ku dhaqanno awaamiirta ama qaanuunka u yaalla xeerka nootayooyinka waxyaalaha la sheegaya run ahaantii wax badan way jiraan laakiin inteeda badan waa wax la buunbuuniyo oo aan ka jirin oo aanay ku dhaqaaqin nootayooyinku isku soo wada duuba kulankani ayaa waxa uu mid isbarasho uu soo qaban qaabiyay isku duwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal waxaana uu sheegay kulankani iyo kuwa kale oo la mid ah in ay sii wadi doonaan si wax looga qabto laamaha cadaaladda ee gobolka Awdal waa Cabdilaahi Daahir Ways telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Boorama intaas waxaynu ku dhamaatay guud ahaan wixii gudihiisa iyo dibadiisa waan idinka haynay oo ka daawanaysan telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV studio Soko intaas waxaynu ku dhamaatay guud ahaan wixii gudihiisa iyo dibadiisa waan idinka haynay oo ka daawanaysan telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV studio Soko badan magaalada Hargeysa warkan waxay idin soo socodsiinaysaa ugu cabsi Cabdilaahi dhamaantii waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh